cudurka korona iyo ciyaaraha Jarmalka oo bilaabmay kubad aanay daawaneyn taageerayaal. Bayern Munich oo hoggaanka u haysta horyaalka Bundesliga ee Jarmalka ayaa guulo xaraga leh ka gaadhay kooxda Union Berlin kulan ay qayb ka ahaayeen kulamada aan hore loo arag loona maqal ee dib loogu bilaabay ciyaaraha dalkaasi xilligan lagu jiro aafada xanuunka coronavirus. horyaalka ayaa dib loo bilaabay iyada oo wax taageerayaal ahay garoonka ku sugnayn, sidoo kale badi dadkii ku sugnaa garoonka ayaa waxa ay xidhnaayeen gafuur xidh isla markaana la joojiyay in loo dabaaldego goolasha marka la dhaliyo. Roberto Lewandowski ayaa Bayern Munich oo koobka daafacanaysa siiyay hoggaanka ciyaarta kadib gool kulaad ah oo uu dhaliyay daqiiqadii 40aad. goolkaasi oo ahaa kiisii 34aad. Benjamin Pavard ayaa goolka labaad ee guusha u xaqiijiyay Bayern Munich markii madaxa si xirfad iyo xeelad huwan uu u dhaliyay kubad geeska laag ah oo uu soo laaday Joshua Kimmich. inkastoo Bayern Munich ay guul ka gaadhay ciyaarta oo ay 2 gool dhalisay, haddana 3 mar oo kaliya ayay guusha Union Berlin joogatay. ciyaartoyda iyo tababarayaasha kooxaha Jarmalka ayaa toddobaadkan karantiin ugu jiri doona hoteelada iyaga oo maraya baaritaanka fayraska corona oo joogto ah, waxayna uga tagi karaan goobaha ay ku tababartaan iyaga oo wada socda. tababaraha Union Berlin ayaa ciyaartani maanta aan kooxdiisa maamulayn sababtoo ah wuxuu jabiyay nidaamka karantiilka markii uu geeriyooday sodogiis.